oo maaragtay maalin khamiis ah waxaa magaalada tan Brussels ka furmay shir ay soo qaban qaabisay hay'adda maaragtay Europe institutionka Europe u qaabilsan arrimaha nabadda amaanka shirkaas oo maaragtay uu ka soo qayb galay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed kaasoo mataqaana maaragtay looga hadlayo amniga geeska Afrika furitaanka shirka waxaa maaragtay ka hadlay ra'iisul wasaare ku-xigeenka oo runtii aad u qeexay maaragtay nabadda iyo argagixisnimada iyo habka looga hortagi lahaa waxaa kaloo meesha ka hadlay khubara oo maaragtay ka yimaadeen maaragtay Mareykanka oo runtii fasiray waxa ku qasbo dadka inay noqdaan maaragtay argagixiso iyo sida maaragtay loo baahan yahay in bulshaweynta iyo siyaasad ahaan iyo maaragtay looga hortagi lahaa marka arrimaha ayaa maanta meesha ka socda shirkaasoo runtii uu socon doono ilaa 2 beri maaragtay waxaa ka hadli doonaan khubaro aad u fara badan oo ka kala yimid dhammaan Afrika iyo qaaradda Yurub iyo Mareykanka waxaa kaloo la filayaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka uu la kulmo maaragtay madaxda Yurub qaar ka mid ah oo halkan maaragtay ballamo uu ku haysto sidoo kale waxaan rajaynaynaa inuu maaragtay la kulmo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool maaragtay magaalada Brussels